ereyga ku xiga waa protocol. Protocol waxa la yidhahdaa waa set of instructions awaamiro set ah that explain how communication between two computers to be carried out. Kuwaasoo sheega ama sharaxa sida xiriirka u dhexeeya laba computer loo fulin lahaa. tusaale ahaan laba computer oo midna wax dirayo midna wax helay loo dirayo qaabkooda shaqaynta uga dhici lahayd waxaa la yidhahdaa protocol. war luuqadda ay isku fahmayaan labada computer ee network ku wada jira waxaa la yidhahdaa protocol. A registry baatmi waa huge database waa database fara badan oo qarsoon kuna kaydsan ama kaydiya computerkaaga waxyaabaha uu qabanayo waxaa la yidhahdaa registry. tusaale ahaan haddaan reg edit ranta ku dirno ama u qorno yes haddaan idhaahdo kuwana waxaa la yidhahdaa registry. waxay ka kooban yihiin programmada computerkaaga kugu duuban systemka oo dhan shaqooyinka aad qabatay waxyaabahaas oo dhan baa lagu kaydiyaa. waa USB waa universal serial bus isagoo hore usoo aragnay mar labaad bay nagu soo noqday. e-commerce e-commerce waxaa la yidhahdaa ama electronic commerce waa ganacsiga lagu dhex sameeya internetka. refers to business of the internet waxay u noqonaysaa internetka ganacsiga lagu sameeyo. website fara badan aanaa jira sida Amazon iyo Pay.com iyo eBay. waa ganacsiga internetka gudihiisa lagu sameeyo. ereyga ku xiga waa extension waxaa la yidhahdaa waa fileka inta u dambeysa. file extension is the last part of the file name waa file nameka inta u dambeysa ee kasii dambeysa weliba after the dot dhibic markaad qortid extensionka raacaya. tusaale kan oo kale waa .pdf hadduu ahaan lahaa tusaale ahaan video oo kale waa .mp4 ama .mp5 waxyaabaha noocaasa. sawirka oo kale waa .png. marka extensionku waa fileka ka dambeeya file nameka waxyaala kasii dambeeya dhibicda ku xiga. IT baadmis waa information technology waa erey loo la xidhiidha loo yaqaan wax kasta oo la xidhiidha computer science. ahaan qofkaas waa IT baad maqlaysaa ama IT gu yaqaanaa waa maxay waa IT qofkaas information technology. ereyga ku xiga waa joystick waa input device loo isticmaalo in lagu ciyaaro gameska oo kale. waa gacankan aan wax ku hagno gameskan ku ciyaarno video gameska waxaa la yidhahdaa joystick. Android baatimi waa a popular operating system for smartphones and tablets. operating system caana oo ay isticmaalaan ama ku shaqeeya smartphoneska iyo tabletada mobilada iyo tabletska. owned by Google waxaana iska leh shirkadda Google. waa softwareka ama operating systemka mobilada ku shaqeeya. app baatimi ama application ama program waa in software used to carry out a particular task. program kasta oo fuliya ama inoo qabta shaqo gooniya waxaa la yidhahdaa application. ereyga ku xiga waa autocorrect waa a feature in many programs which automatically corrects your spell. waa feature waa adeeg ay leeyihiin programo fara badan kaasoo wuxuu sameynaya automatically corrects your spell. wuxuu si automatically u saxayaa spellingkaaga especially markaad wax qoraysid and even your grammar. marka qaarkoodna grammarkaaga uu saxaya as you type mar alla markaad wax qortid. waxaa laga yaabaa inaad wordka ku aragteen ama mobiladan caadiga markaad wax qoraysid inuu kusii saxo. tusaale ahaan erey baad qoraysaa inuu kusii dhammaystiro grammarkii inuu markaad khaladid oo kale inuu hoosta calaamad ka mariyo waxaa la yidhahdaa autocorrect. ereyga ku xiga waa biometric waa system loo isticmaalo inuu examen ka qaado ama imtixaan ka qaado ama garto waxaa la yidhaahdo biological things sida fingerprintyada iyo retinaska indhaha waxyaabaha noocaas waxyaabaha for securityga loo isticmaalo in lagu eego oo kale. tusaalahaan mobilkaaga waxaa laga yaabaa inuu fingerprint leeyahay. fingerprintkaagu biologicalkaagu kamid yahay waxyaabaha qofka gooni la tahay. tusaalahaan isha bu'da oo kale qofka marka laga sawirayo waxaa lamid ah kaarka aan isticmaalay mobiladan inoogu jira xaggiisa dambe. biometric waxyaabaha xogta ku kaydsan tahay waxaa la yidhahdaa biometric. erey ku xiga waa bluetooth isagoo isla wada naqaanaa waa short range wireless data communication. waa wireless gaaban xadigiisu oo communication for smartphones waxaana leh mobilada. iminka waa laga yara baxay waan malaynayaa mobilada wax lagu wada dirsado. marka computerada qaarna way leeyihiin. erey ku xiga waa bluetooth browser program used for viewing world web pages. browser waxaa la yidhahdaa program lagu eego website-ada ama internetka lagu isticmaalo oo kale.
waxaa kamid ah Google Chrome, Mozilla Firefox, waxyaabahaas oo dhan waxaa la yidhahdaa browsero ama programmo loo isticmaalo in internetka lagu isticmaalo lagu galo. CAD baa timi, waa computer aided design baa loo soo gaabiyey, waa software loo isticmaalo in lagu sawiro sawirada aadka u kakan oo kale ama fara badan complicated-ka ah ee kakan. tusaale ahaan waxaad dhisaysaa oo kale dadka badanka engineerada isticmaala construction aad u weyn oo kale, kaasoo kale waxaa loo isticmaalaa CAD-ka. AutoCAD baa jira mid la yidhaahdo, marka waxaa lagu design garaya ama lagu sawiraa drawinada aadka complex-ka ama aadka u adag oo kale. ereyga ku xiga waa compatible. Compatible waxaa la yidhahdaa waxyaabaha isqaadan kara, labadu waxay wada shaqeyn karaa waxaa la yidhahdaa compatible. waa a piece of equipment that can work together. waa equipment nooc qalabka kamid ah kuwaasoo wada shaqeyn kara. tusaale ahaan programka iyo computerkaaga haday wada shaqeynayaan maxay programkaasi muxuu yahay compatible computerkaaga leeyahay. tusaale ahaan qalab baad mobilkaaga rabtaa inaad gelisid kuma shaqeynayo, waa maxay? waa incompatible. marka incompatible ones ku maxay yihiin? waa can't, iyagu ma shaqeyn karaan, ma wada shaqeyn karaan. ereyga ku xiga waa compression. compression waxaa la yidhahdaa a way of making files smaller. waa habka looga dhigo fileska kuwa yaryar. file ba computerka kugu jiray yara culus oo kale, compression baa ku sameysay ama isku cadaadin, muxuu noqonayaa filekii sizekiisu small buu noqonayaa. laba siba markaa loo isticmaalaa, either to fit into restricted storage space. marka koowaad inaad ku fit garaysid ama leekaysiisid xaddi storage oo kooban oo kale. tusaale flash baad haysataa, waxaad rabtaa inaad intaas kale ay kuu qaado, fileka original sizekiisii uu ka yaroowaya. compression baa ku sameynaysaa, waa isku cadaadinaysaa si storagekii aad u ilaashatid. marka labaade inaad speed up sameysid oo dedejisid transmissionka markaad ku diraysid internetka, sidaad u gudbinaysid oo kale. marka fileka hadduu culus yahay iyo hadduu fudud yahay, marka la gudbinayo ama la isu dirayo waa kala waqti baa la kala sugaa. marka labadaasiba compressionka waa loo sameeyaa. ereyga ku xiga waxaa la yidhahdaa waa cookie. waa small data file stored on your computer by a website. waa small data yar oo ku kaydsan computerkaaga uu kuna keydiyey website-dada aad isticmaasha. tusaale ahaan waxaa dhici karta marka qaarkood website markaa soo gashid inuu hoosta kaaga soo saaro we use cookies baanu isticmaalaaye agree samee. marka cookigaasi wuxuu la soconaya dhaqdhaqaaqaaga. tusaale ahaan marka qaarkood offeraa jira internetka lagu sameeyo ama xayeysiinta oo kale, waxaa la eegaya meesha aad joogtid. marka waddan kasta offer gooniya buu leeyahay ama advertise xayeysiin gooniya. marka wuxuu sameynayaa waxa la yidhaahdo inuu remember kugu sameeyo, ku xasuusto inaad tahay qofkii soo galay meesha.